بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام بعد إلها أمهد علينا دمانتين بعد ما هنق وحاربنا مانتو حافرنا ورك شوب أو تريدين أو لو قلت لك بيرها عتب كعيدين كتلياني iyo wasaaraddeena beeraha waxa isla qabtaan iyo hay'addeena Given Hands amar walba qabano waxa ilaahay mahadiisa waa sanadka labaad oo ilaahay nagu guuleynaa inaan sameeyno Given Hand ka ahaan insha Allah markuu waxaan rabnaa seminaarkeena agaasimaheena inuu noo furo waxaan ku hormareynaa injineer Khaliif oo waaxid Talyaani ah wax badan la socdo codka Talyaaniga waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh marka ninkan saaxiibkayga Cabdiqani ayaa markii agaasimaha Given Hand ayaa u cazumay inaan markii ka soo qayb galo furitaanka tababarkan markii loo sameynayo markii dhalinyartan oo markii ku howlay beeraha markii hore yani waxaan markii u mahadcelinayaa wasaaradda beeraha oo markasta u joogto yani inay kor u qaado aqoonta dhalinyarta markii Soomaaliya si wax soo saarkooda u badiyaan waxaan yani meeshan yani sidoo khaas ah u mahadinayaa dowladda Talyaaniga oo markii mawduucan ka soo qayb gashay markastana yani runtii tababar noocan oo kale u gudbisa wasaaradda beeraha iyo bulshada Soomaaliya inay markii aqoontooda ziyaadiyaan marka Cabdiqani aad u mahadsan tahay wax qabadkaada aniga aad ula socdaa yani meel badan markii yani isku aragnay tan kale waxaan ugu mahad celinayaa halkan dowladda Talyaaniga gaar ahaan cutubka ciidamada Talyaaniga oo door weyn ka qaatay in uu suurto geliyo codsiyadii loo soo gudbiyay oo ku taxalluqa dhinaca tababarka iyo dhinaca horumarinta beeraha gaar ahaan tan ay qayb ka tahay waxaa tiin dad fursadii ugu wanaagsanaa dadka helayaa tiin waxaa la rabaa marka inaad ka faa'iideysataan ummadana aad uga faa'iideysaan marka aad ku faa'iideysataan ayay ummaduna faa'iideeda ay helaysaa theory aan meeshan ku qaadanayno marka waxaa la idinka rabaa inaad u beddeshaan practic oo aad shaqo u beddeshaan haddii aan la yiraahdo aad iyo aad mahadsantihiin kabtan Mooge oo ka socdo cutubka Talyaaniga oo fursadan bixiyay iyo labada professor Abdulqaadir Xasan Warsame iyo engineer Ahmed Daahir oo casharadii loo baahnaa soo diyaariyay oo muddada isbuuca soconayso runtii waxaan rabaa ugu horeyn inaan u mahadceliyo cutubka ciidamada Talyaaniga u qaabilsan qaybta taakuleenta oo mar walba xoogga saara sidii dhalinyarada Soomaaliyeed loo sameyn lahaa capacity building lagu jiheen lahaa dhanka wax soo saarka haddii xaaladaha wax soo saarka dhanka beeraha kalluumaysiga iyo xanaanada xoolaha anaga waxaan qaabilsanahay qaybta beeraha fursadan waxaan mar walba waa sanadkii labaad aan qabanayno oo hay'adda Given Hand fursadan la siinayo wasaaradana waxay ka caawinaysaa dhanka macallimiinta sida aqoonta loo baahi lahaa oo loo gaarsiin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed maadaama lagu qiyaaso waddankeena boqolkiiba 70 in dhalinyaro yihiin sidaas awgeed waddanka wax ka bedeli karo dhalinyarada waxaan rajaynaynaa aqoonta meesha laga helay in markii la dhameeyo in lagu sii daro in hal abuur la sameeyo tiimkii hal abuur sameeyana waxaan ku dadaalaynaa aniga iyo Cabdiqani iyo Mooge inaan hore u sii wadno oo waxaan rajaynaynaa inaad ka faa'iideysataan casharada meesha ka baxay waana noo furan yahay tababarkeena maanta aadaan idin salaameynaa kulligeena waxaan idin jeenaynaa guul iyo gobol insha Allah